laba qof ayaa ku dhimatay shil gaari oo habeennimadii xalay ka dhacay deegaanka Libaaxo oo ka tirsan degmada Dongoroyo ee gobolka Nugaal. Shilkan gaari ayaa waxaa sababay kadib markii ay isku dhaceen gaari yar oo nooca xaragada ah iyo gaari weyn oo nooca xamuulka ah, iyadoona shilka kadib darawalkii iyo ku-xigeenkiisa ee watay gaariga weyn ay goobta ka baxsadeen. waxaana laga soo qabtay mid ka mid ah magaalada Qardho, halka kan kalena laga soo qabtay gudaha magaalada Garowe. goobta uu shilku ka dhacay ayaa waxaa subaxnimadii hore ee saaka gaaray taliyaal qaybeedyada booliiska gobolada Karkaar iyo Nugaal oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalinta nabadgelyada wadooyinka Puntland iyo gudoomiyaha degmada Dongoroyo. intaasi kadib ayaa waxaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen taliyaha qaybta gobolka Nugaal Abdixamiid Maxamed Dirir. waxaan hadda maanta halkan ku soo bandhigaynaa arrimihii shilkii xalay ka dhacay tuuladan la yiraahdo Libaaxo. shilkaas oo ay ku dhinteen laba marxuun Allah u naxariiste oo ka dhacay gaari jeesara iyo gaari sideed boolaha la yiraahdo ama waaraatida. ragga halka u jeedaan baabuurka waday labaduna waxay sameeyeen markii shilku uu dhacay inuu niba meel u ordo, mid xagga Karkaar aada iyo mid xagga Garowe soo aada. annaguna waa ka howlgalnay. xagga Karkaar waxaanu la xiriirnay taliyaha qaybta oo hadda dhinacayga taagan gobolka Karkaar Korneyl Jaqanaf. dhinacan kalena waxaanu adkeynay inaanu wadooyinkii iyo laamiyada xirno. si kastaba ha ahaatee mid ka mid ah waxaa lagu soo qabtay tuulada iyo kala yiraahdo. ninka kalena waxaa lagu qabtay isagoo gaari intuu ka soo raacay meesha laftigeeda laanta hawada kaga degay ka bacdina uu magaalada si lugu ku soo galay. ciidanka saldhigga ayaa si fiican uga howlgalay, haddana gacanta ku soo dhigeen. waa ilaahay mahadii haddaan maaragtay shilkii aan hadeer la oranayn lama hayo iyo waa maqan yihiin iyo aadna waxaan uga howlanahay inaan fal kasta oo dhaca aanu markiiba ka hortagno. wixii khasaare ah ama wixii faahfaahina waxaa idin faahfaahin doona haddii ilaahay idmo qolada traafikada oo wadooyinka iyagaa meeshii tegey, iyagaa soo cabiray. riboodkana waxaa ka diyaariyey qoladan CID-da kolay warbixintii oo tifaftiran oo waxba ka maqnay haddii ilaahay idmo oo la soo bandhigi doonaa. laakiin hadda waxaan u caddaynaynaa inaan raggii falkaa geystay ama darawalladii baabuurka waday labadiiba ay halkan fadhiyaan. midna uu yahay ninkii darawalka ka ahaa gaari oo ku qornaa, midna ninkii markaa gacanta ku waday oo ninka darawalka u dhiibay ilaa iyo laanta hawada isagoo ka kaxeeyay ilaa meesha shilku ka dhacayo. labadiina waa kuwa hadda aad u jeedaan oo halkan fadhiya. marka inta baan rabnaa hadda wixii kale oo maaragtay soo saayida ama hawsha la xiriira waxaanu kala xiriiri doonaa riboodkooda ka sugeynaa maanta ilaalinta wadooyinka iyo CID-da. marka aad baad u mahadsantihiin. waxaan halkan si taliyaha qaybta gobolka Karkaar oo aanu leenahay xiriir aad u dhow oo maaragtay wada shaqeyna oo aan si fiican maaragtay hadba aan wax badan isugu soo celcelino. aan rajaynayno inaanu sida aan labadeed u wada shaqeyno aan u wada shaqeyn doono dhammaan gobolada oo dhan si ay xiriirka maaragtay wada shaqeyntu u fiicnaato aan cidnana meel ugu baxsan. marka waxaan leeyahay warbixintu waa intaa. wixii soo faahfaahina dib baan ka soo sheegi doonaa iyagoo tifaftiran. Shabakad Abdulqaadir Jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.